أنا أركتنا عادي يسوي أركت عجيبة قفها وحب بالله بإيبين تشمع معناه كان ليس حلو يقع قف بالله بإيبين تشمع قعنت لو سمعي بل سمرك وسوق جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك أصحابك سورة درج الشو يبرامج كأني سكويد بوقتها أو أنا ما أنت سوق هذا دونه قيب طلبات يبوغا لو يقانو هانريسر هاستريس بوغا لو يقانو هانريسر هاستريس وإنه هو سوق هذا قيب تيسكوبات إنه سوق هذا دونه برامج كان قيب طلبات يبوغاز سيدا عادة إنه هيبا وحكسو شاكيني دول مركب جود يهرنعه iyo qayb kamida waaxaha waaweyn ee aan soo qaybinay sidoo hore waxaan soo sheegay 7 waaxood inaan u qaybiyay iyo hordhaca iyo dulmarka guud iyo sidoo kale talooyinka waaweyn buugga iyo ugu dambeystan ku soo qaadan doona gunaadka qaybta labaad waxaan ku soo qaadan doonaa ilaa 3 qodob oo kamida waaxaha aan u qaybiyay buugga ee 7 waaxood ah qaybta labaad waxaan ku bilaabaynaa waaxda saddexaad ama qaybta saddexaad qodobka saddexaad inaan ku soo qaadan doono guushu waxa ay ku timaadaa xalinta dhibaatada guushu waxa ay ku timaadaa xalinta dhibaatada qodobkan qodob muhiim ah way inaad guul dhaqaale gaarto ama inaad business abuurto ama side hustle inaad samaysato waxay ku timaadaa inaad guuleysato xalinta dhibaatada ku soo dhawaada marka muuqaalkeena haddii ay marka ugu horeyso soo boqod Darji Show falan rukumo muuqaalkan like noo soo mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee buugga Handressel Hastles uu xoojinayo waa in ganacsiyada ugu guulaha badan in ay ka dhashaan xalinta dhibaato jirto xalinteed ay ka dhashaan ganacsiyada ugu guulaha badan dadka ganacsiyada dhinaca ah ama ganacsiyada codida ku guuleystay badanaa ma aysan bilaabin fikrad ganacsi oo iska socota macnaha fikrad socoto jirtay oo ma aysan bilaabin balse waxa ay aqoonsadeen ama raadiyeen ogaadeen dhibaato jirto baahi ay dadku qabaan ama fursad aan la tijaabin ay ogaadeen dabadeed waxa ay keeneen xal ay macaamiishu diyaar u yihiin inay lacag ku bixiyaan macna xal macaamiisha aad target garaysanayso xal ay rabaan ayagu oo lacag inay ku bixiyaan ay diyaar u yihiin okay sidee ganacsi loogu xalin karaa dhibaatooyinka ganacsi sidee dhibaatooyin loogu xalin karaa buug wuxuu tilmaamayaa si loo helo ganacsi guuleysta in ay tahay in la raaco talaabooyinka muhiimka ah soo socda talaabada koobaad aqoonso ama ogow baahi jirta aqoonso ogow haddii aad rabto inaad ganacsi dhinac ah samayso ama ganacsi duceedka samayso ka bilow adiga oo isweydiinaya maxaa isweydiinaysaa dadku maxay u baahan yihiin su'aashaas isweydii maxay ka cabanayaan dadku isweydii maxay hadda isticmaalaan ee aan si fiican u shaqaynayn macna waxaa jiro business ama ganacsiyo waxaa jiro laakiin dadku aysan ku qanacsaneen ama si wanaagsan aan dadku ugu shaqaynaa jiro tusaale kale mararka qaar waxaa dhacaysa hal shirkad ayaa meel degaysa ama dukaan kaligiis wuu ku tumanaya dadku ku tumanaya adeeg fiican ma leh maxaa la yiraahdaa qiimuhu waa sareeya احترام إيا كسبشو جعيل بلشان ماله معناها بهدلات وضدك كسومينيا ضدك لعيت سينا يو بهدلات كسومينيا marka adiga waxa fiirinaysa waxyaabi qodobada oo business kaas jiro dadka ku dhibaateynaya ama aan wanaagsaneyn fiirinaysa intaas ka bedelaysa business kaada marka ama waxa fiirinaysa baahi jirto ama cabashooyin ee dadku sameynayaan hagaa waxaa muhiim ah in aad fiiriso waxyaabaha dadka dhibaya waxyaabaha ay waqti badan geliyaan si ay waqti u soo gaabi karto ama adeegyada ay haystaan balse aysan ku qanacsaneyn fiirinaysa qodobka labaad abuur xal si fudud u shaqaynaya abuur guusha ganacsigu waxa ay timaadaa markii aad xalisa dhib laakiin xalkaagu waa inuu noqdaa mid macquul ah fudud oo la isticmaali karo hal macquul ah fudud la isticmaali karo oo noqda dad badan oo ku guuleysta ganacsi dacadyada ayaa abuuray xalal sahlan laakiin wax weyn ka bedelay sida dadka ay u maareeyaan ayaa macnaha sida ay dadka
u maareynayaan ay wax badan ka bedeleen soo jiidashada dadka ay wax badan ka bedeleen ama sidii businesskooda dadku u gaarsiinayaan nafskooda marka waa in culays adiga culays ku xalinaysa because business arta dadkan waa in culays ka darajisaa oo saddexaad baar oo hubi in dadku u baahan yihiin waxa aad samaynayso hubi oo baar dadku inay u baahan yihiin koor inta aadan maal gelin badan gelin ganacsigaaga maal gelin badan inta aadan gelin isku day inaad baaritaan samayso si aad u ogaato in dadku xiisaynayaan halka aad bixinayso halka aad keenayso dadku ma xiisaynayaan mar raba tusaale ahaan samey sahanno kow fiiri jawaabaha bulshada kaaga imaanaya iyo xitaa bulshada marka waxayna qartaa inaad direct toos aad dadku u weydiiso oo sahan u samayso toos oo bulshada dhex galaya iyo inaad social media ku samayso ama la hadal dad raba xal ka mid ah kan aad qorsheynayso macnaha xalalkaada dadka u bandhig macnaha si farsamaysan oo caqli ugu bandhig macnaha xalkii dhan ha iska sheegin because dada nafsikooda raadinayo fursado hagaag tusaalooyin dhab ah marka dhibaatooyin jira la xalliyo arrimahan marka anaga waana anfacayaan haddii si loo eego buugga 100 Side Hustles wuxuu bixinayaa tusaalooyin badan oo muujinaya sida dadku ugu guuleystaan ganacsigooda iyaga oo xalliyay dhibaatooyin jira iyagoo xalinaya waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka lagu soo bandhiga buugga xal u helid dhibaato ka jirta suuqa qodobkoodan soo qaadan xal u helid dhibaato suuqa jirta maxay tahay ganacsado naqshadeeyay boorsooyinka carruurta ee fudud macnaha problem jiro ahaa macnaha ayuu xalliyay sidee hooyo dareentay in aysan jirin boorsooyin raaxo leh oo loogu talagalay waalidiinta carruurta haysta macnaha fursaddan marka hore jirto soo haddana si kala loo sii rogi karaa waa la sii fududayn karaa ayadaskeeda waxayna naqshadaysay boorso fudud qurux badan oo si fiican wax loogu rido karo macnaha uu qaad fiicana leh haddana fudud oo yar oo quruxsan waalidiin badan ayaa dhib ku qabay boorsooyinka waaweyn ee aysan si fudud u xambaari karin carruurta sidaas darteed ganacsigii wuxuu noqday mid guulaystay macnaha ganacsi noocaana yeesho qofkaas qodobka labaad adeeg loogu talagalay dadka raba wax la diyaariyay macnaha dad waxaa jiro aan dhibka jeclayn marka waxyaabo badan waxay raadiyaan qofku ay gacanteeda ku samayn karto ama inay qofku samayso ay awoodda laakiin ayagu ay jecel yihiin in loo sameeyo dhaqaalaha marka laga samayn karaa qof bilaabay adeeg dib u qorista siifiyada horena wax baan ugu soo sheegay qaybta hore dib u qorista siifigaadii qofku u keensanaysa asoo wax yaroo macno aan lahayn oo quruxsanayn u keenaysa marka waxaa leedahay siifigan waxaa iga dhigtaa mid cajiib ah oo markii loo geeyo qof shaqo aan ka doonanahay aad ay u danaynayso wax oo macnaha siifiyadu quruxdu iyo in nidaam aqooneed in lagu fariisiyo oo qofku xirfad fiican oo siifiyo ay leedahay qayb ay ka qaadanaysaa shaqo helistaada qof aad u yaqaan xirfadda qorista siifiyada iyo habka loo helo shaqooyinka wuxuu arkay in dad badan u baahan yihiin in siifiyadooda loo hagaajiyo si xirfadaysan macnaha wuxuu abuuray adeeg dib u habeynta siifiyada ah taasoo noqotay ganacsi guulaystay maadaama ay dad badan rabeen inay shaqo helaan balse ay siifiyadooda aysan wanaagsanayn arrinkan waa jira magaalada waxa jira xamar oo kale ama Soomaaliya waxa jiriyaan ama kulli adduunka oo waxa jiraan laakiin Soomaaliya oo kale marka la fiirsho ama meelaha nagu dhawow kale wadamadan nagu dhawow kale cilada jirta waxa weeye qofka shaqadan qabato dadka isma barta macnaha aad dooma yaqaan hadda waxaan arkay YouTube Facebook afwan WhatsApp waxaan ku arkay group oo arrimahaas ka shaqeeya laakiin group bisle macna ma sameeynayo Facebook sameeyso fiican oo page fiican la yaqaano ku baahi aad wax u baahi si loo arko markaas lagula socdo aad soo baahiyo macnaha dadka isbar TikTok sameeyso ku sameey barnaamijyo dadku waa inay ku ogaadaan oo ay ku bartaan qodobka saddexaad wax ka beddelka waxyaabo jiray macnaha qodobka saddexaad ganacsade xalliye dhibaatada layrka yar ee guryaha kulli tan waxay qusaysaa dadka oo arrimaha electricity wax ka yaqaan aniga kulli aqoon electricity ma laakiin waxaan idin sheegayaa history-gan aan soo gudbinaya qof ku noolay magaalo ay layrku ka go'o marar badan layrka ka go'ay wuxuu abuuray bateriye casri ah oo loogu talagalay guryaha si dadka ay u isticmaali karaan nalalka muhiimka ah u isticmaali karaan xilliyada
korontada iyo maqanta magaalooyin badan jiro oo xitaa Soomaaliya ah oo leerku markaas iska tagtago oo daciif u yahay fursadan oo kale ka faa'iideysan karta qofka electricity-ga taqaan tani waxa ay noqotay ganacsi guuleystay maadaama dadkii u baahnaayeen xal fudud oo la heli karo macna wax aan dhib badnayn qarash ahaan macquul ah sababta korontada lacag ku bixisa qofku kanna waa inay qarash yar ay ku heli kartaa sidee adigu dhaqan gelin kartaa marka program wax noocaas sidee u dhaqan gelin kartaa ama waxa aan soo sheegay dhacdooyinka aan soo sheegay sidee uga faa'iideysan kartaa hal midna waa ku sii sheegay macnaha waxa aan sheegayo fursadan haddii suuqeeda buuxdo adoo tan ka tusaale qaadanayo oo maskaxda shiilayo oo hal abuur sameynaya ayaa fursado kala abuuri karta ama kuwa jiray oo nidaamsanayna nidaamin karta qurxi karta kuwa dadka si fiican loogu qabano manipulating lagu sameeyo suuq qof iska qabsatay macnaha dadku si rabta u dhaqmayso ayaad ka riixi kartaa suuq haddii aad rabto inaad abuurto ganacsi dhinac ah oo guuleysta ama ganacsi duceed isku day inaad raacdo tallaabooyinkan soo socda kow tallaabada koowaad maxay tahay eeg dhibaatada dadka ka haysato nolol maalmeedkooda macnaha arrimaha ku xeeran fiiri maxay ka cabanayaan fiirinaysa dadku maxay ka cabanayaan fursada kugu jirta meeshaas dareen c suuqa dareen geli waxa suuqa jira macnaha dareen c suuqa maxaa hadda la heli karaa maxaase la hagaajin karaa wax jiray oo la hagaajin karo qodobka saddexaad wuxuu leeyahay tijaabi xalkaaga si fudud u tijaabi xalka aad samaynayso si fudud u tijaabi ma jiro wax ka hor joogsanaya ama ka hor istaagaya inaad isku day samayso isku day samay macnaha waxaan tijaabo ku samay dhaqaalaha badanna iska ilaali marka hore wax normal samay wax fudud ku tijaabi suuqa oo tijaabooyin samay si rabitaanka bulshada u ogaato qodobka afraad wuxuu leeyahay u fududay macaamiisha xalkaaga wax fudud dadka u samay ha ka dhigin mid adag ama qaali ah marka hore waxa aad samaynayso wax qaali ah oo adag bulshada u keenay sababtoo ah waxaa laga yaabaa fursadihii jiray ama waxa aad xalinaysa inay hore u jiraan iyagoo macquul ah dhegayso jawaab celinta waa inaad wax ka barataa dadka isticmaala adeegaaga iyo badeecadaada wax ka baro jawaabahooda aruuri ganacsiyada duceedyada ee guuleystay ganacsi duceedyada guuleystay badanaa waxa ay ka bilaabmaan xalinta dhibaatooyin dhab ah oo dadka haystay ka bilowda dadka dhibaatooyin haysta haddii aad rabto inaad abuurto ganacsi dhinac ah ka fikir maxaan xallin karaa macnaha aniga maxaan xallin karaa suuq soo kordhina ku xallina buugga 100 Sell Hustles wuxuu caddaynayaa in hal fikrad oo xal ah ay qofka ka dhigi karto ganacsiyada guuleysta hal fikrad oo xal ah ma jirtaa inaad adigu raadiso dhibaato aad xalliso su'aal waa haddii taas aysan jirin waa waqtigii aad bilaabi lahayd fikir inaad fikirto maskaxda ka shaqaysiiso inaad waqti bilaabi lahayd qodobka afraad ee toddobada waaxood xirfadahaaga ayaad ka faa'iideysan kartaa xirfadaha aad leedahay ayaad ka faa'iideysan kartaa wali qodobkan ama wax cusub ayaad baran kartaa labadaas dariiqa ku banaan macnaha labada dariiqa wax macquul waa labada dariiqo waa laba dariiqo aan dhib badnayn hagaag mid ka mid ah waxyaabaha ay dadku kaga faa'iideysteen ganacsiyada duceedyada ama ganacsiyada dhinacyada ah waa adeegyada ama adeegsiga xirfadaha ay hore u lahaayeen ama barashada xirfado cusub oo ay suuq geyn karaan suuqgeyn ku samayn karaan qodobkaas wax yaraan dhex gashanaya aniga markaan inkastoo mar kale aan program fiican uga sheekeyn doono waxaa jiro xirfado aan bartay hajo laakiin markaan baranaya aan arkaynin inay wax weyn yihiin oo macnaha wax weyn oo muhiim ah ma u arkaynin aniga waa iska baranaya macnaha ama jacayl ayaan u haayay rabitaan aan u haayay markaas fursad ama firaaqa aan ku bartana waa haysta laakiin maanta la joogo iyo sanado badan oo soo dhaafay xirfadahaas lacag ayaan ku samaynay dad badan marka waxaa jira waagaas aan baranayay aan isla joognay firaaqadan haysto ka badan haystay meelaha aan programkaas aan ku baranayay joogay haddana aan ka faa'iideysanaa jiro because cashirku markuu socdo haddaan niyad u haynoona dhegaysanin ururin practice garayn oo aadan ku shaqaynin waa iloobaysa waxba baran mayso marka programkan aan uga sheekayn doonaa weliba waa badan yihiin kuwo muhiim ha jiro waaweyn oo hadda maanta aan ku shaqeeyo waxaa kaloo jiro xirfado dadka qaar waqti badan ay moodaan inay qaataan haddana anigu
one day iyo 2 day 3 day aan ku bartaa jiro maantana aan ku shaqeeyo haddana marka macnaha wax aan hore u baratay ama waxa hore u haysatay ka faa'iideyso leeyahay macnaha waa wax muhiim ah buugga Handle Hustles wuxuu muujinayaa in dadka guuleysta aysan dhammaantood ahayn xirfadley hore u yaqaanay ganacsiyada ay sameeyeen macnaha hore inay u wada yaqaaneen macnaheedu ma qaar badan ayaa tartiib wax u bartay hal abuur sameeyay dabadeedna waxa ay horumariyeen ganacsiyadooda ganacsiyo sameeyeen hagaag haddaba haddii aad horay u lahayd xirfad aad taqaanay waxaad ka faa'iideysan kartaa si aad ganacsi dhinac ugu bilowdo uga faa'iideysan kartaa haddii aadan xirfad gaar ah lahayn waxaad baran kartaa xirfad cusub taasoo ku horseedi karta faa'iidooyin badan faa'iido badan ay ku samayn kartaa qodobay oo qiimeeya markan qodobka afraad qodobuu sameynaya qodobka koowaad ee qodobka afraad wuxuu leeyahay sida looga faa'iideysto xirfadaha hore sida uga faa'iideysan kartaa haddii aad horay u lahayd xirfado waxaa jiro dhowr dariiqo oo aad si fudud ugu bilaabi karta ganacsi dhinaca aad ugu bilaabi kartaa tusaalooyin soo qaadanay haddii aad tahay qoraa ama tiftire haddaad tahay waxaa samayn kartaa maqaalo freelancer ah macnaha freelancer ahaan ayaa ugu shaqayn kartaa tiftirka buwaagta ama xitaa barashada CEO content writing waxa loo yaqaano search engine optimization content writing a samaynaysa gaar aan uga hadlaynaa kaas laakiin waxaa samayn kartaa qoraalaa samayn kartaa maqaalo ah tiftiraa samayn kartaa warbixinaa qori kartaa warbixinada sixi kartaa freelancer ahaan ugu shaqaynaysaa qodobka labaad wuxuu leeyahay haddii aad xirfad u leedahay naqshadaynta graphic designka waxaad bilaabi kartaa adeegyo aad ku naqshadaynayso loogooyinka boorarka posterska ah ama buug-yarayaal brochures waxay loo yaqaan brochures aad samayn kartaa loogaa samayn kartaa posters aad samayn kartaa boorarka waaweyn xitaa waxaa samayn kartaa dee dukaamanka iyo wixii lamid oo dhan aad samayn kartaa howlo badan aad qaban kartaa waxaa samayn kartaa cover design aad samayn kartaa buwaagta kafaradooda wax badan aad samayn kartaa postersku waa badan yihiin badayaga balaaranba sidoo kale qodobka saddex wuxuu leeyahay haddii aad tahay qof yaqaan barnaamijyada kombiyuutarka waxaad horumarin kartaa bogag internet aad samayn kartaa waxaadna samayn kartaa adeegyo sida dhismaha wasiidoo kale samayn kartaa qodobka afraad wuxuu leeyahay haddii aad xirfad u leedahay waxbaridda teaching and touring wax loo yaqaan haddii aad xirfad u leedahay waxaad samayn kartaa cashiro online ah ama cashiro qofka qof ah online-ka naftiisa wuxuu yahay face to face na leh ama online cashiraad duubi kartaa oo sida geli kartaa wixii lamid ah dabadeedna dadka ka iibsanay ama qofka qofaa samayn kartaa zoom directiya dadka wax u bari kartaa oo ku saabsan luqadda xisaabta sayniska ama xirfadaha kale ee la xiriira waxbarashada way ballaaran yihiin xirfadaha waxbarashada ugu dambeyn qodobka shanaad wuxuu leeyahay haddii aad tahay qof hal abuur leh waxaad samayn kartaa alaabaha samayn kartaa la iibin karo sida farshaxan artiska ku shaqayn kartaa dharka la daabaco waxyaabo naqshado cusub lagu sameeyo ama alaabaha la habeeyo dib loo farsameeyo optimized product wax loo yaqaan alaabaha dib loo farsameeyo oo dib loo hagaajiyo hagaag buuggu wuxuu xusayaa dad badan oo ka faa'iideysta xirfadahooda si ay u bilaabaan ganacsi dhinaca ama ganacsi duceed iyagoo aan maalgelin badan gelin macnaha maalgelin badan ma samayn qodobka labaad ee qodobka afraad wuxuu leeyahay barashada xirfado cusub kuwa hore maxay ahayd xirfado aad u taqaanaysa uga faa'iideysan karto tanna waxaa waa xirfado cusub barashada xirfado cusub oo ganacsi looga faa'iideysto ganacsi uga faa'iideysan karto xitaa haddii aad aaminsan tahay in aadan xirfad gaar ah lahayn waxaa si fudud u baran kartaa xirfado cusub adigoo adeegsanayo ilaha online-ka ah ee lacag la'aanta ah ama qiimo jaban leh ilaha online-ka ee lacag la'aanta ah ama qiimo jaban leh tusaalooyin dad guuleystay oo wax cusub barta macnaha tusaalooyin qof aan horay u aqoon barnaamijyada kombiyuutarka wuxuu barashadiisa ku bilaabay YouTube ka bilaabay macnaha YouTube ka bartaba free dabadeedna waxa uu noqday naqshadeeye UI iyo UX designer ah oo noqday oo adeegyo ku bixiyo barnaamij noocaas ah waxaa kaloo jiro qof shaqadiisu ahayd xafiis caadi ah macnaha xafiis caadi ku shaqeey jira wuxuu bartay sida loo suuq geeyo alaabooyinka online-ka xafiiska maadaama uu fadhiyo xilliyada firaaqada ku faa'iideysan sida loo suuq geeyo alaabooyinka online-ka dabadeedna waxa uu bilaabay ganacsi affiliate marketing ah oo uu horseeday guul marka waxaa laga yaabaa inuu ka deeqtoomo in dee uu
xafiis ka shaqeeya shaqaale sii ahaado qof bartay naqshadeynta sawirada tusaale ahaan qofkan wuxuu si fiican u adeegsaday programmada loo yaqaan Canva iyo Photoshop adeegsaday si uu u naqshadeeyo sawirro uu ku iibiyo etc iyo Fiverr uu ku iibiyo ayuu sameeyay sidoo kale qof bartay sida loo diyaariyo koorsooyinka online-ka sida loo diyaariyo waxa ogaateen koorsooyinka online-ka in la diyaariyo mararka qaar aqoonta xirfadda kaliya u baahan xitaa qaabka gudbinteeda u baahan sababtoo soo jiidashada macaamiisha ardada qancinta saa u qancin karto iyo koorsada markaa samaynaysa u balance gareey karto sababtoo xirfada rabtaa inaad dad barto xirfada saa u balance gareey karto iyo sida u maaj gareey karto oo u kala nidaami karto u kala hormarin karto qaabka sharaxaadaadu qofka u daraji karto waxa u sheegayso shay muhiim ah wuxuu diyaariyay waxbarasho ama koorso uu diyaariyay ku saabsan xirfadiisa kadibna wuxuu lacag ka sameeyay koorsooyin uu ku iibiyo website-ka loo yaqaan Udemy iyo Teachable laakiin Soomaalida website badan leedahay website badan jiro oo waxbarashada lagu iibgeeyo waxa kamid ah website talo waxaan ka soo qaadi karnaa waxaa jira website loo yaqaan waa Bari Academy jiro kulli xirfado soo gudbiya waxaa jiro afwan waxaa jiro dugsiya jiro waxaa jiro shir xirfada jiro hurbada jiro macnaha website Soomaalida oo aanay intaan garanayo qaarkood aniga aan koorsooyin ka soo qaata xataa marka waa badan yihiin marka waxaan ula jeedaa Udemy iyo Teachable aniga ma ogi kuma arkin macallin koorso Soomaali qaab Soomaali ugu bixinaya laakiin English hada taqaano xirfadina taqaano the best one lacag badan ka samayn kartaa aniga Udemy aan marka hadlay barnaamijka hadlay koorsooyin badan ka qaatay lacagtiisu aad u jabanta marka waliba koorsooyinka mar kale inaan ka sheekeyna qanay sababtoo waqti la geli karo koorsooyinka Udemy-ga cajiib waa lacag yar ku heli kartaa qiimo jaban hagaag xirfadaha ugu fudud ee la barta si ganacsi dhinaca loo sameeyo xirfadaha ugu fudud ee la baran karo maxaa waaye waxaa kamid ah xirfadda loo yaqaan CEO and content writing qorista maqaalada suuqiinta ah iyo wixii la mid ah CEO and content writing labo graphic design naqshadeynta waa badan yihiin macnaha sawirada kaliya ma dhihi karno posters ka naqshadeyn kartaa logos ka naqshadeyn kartaa flyers ka naqshadeyn kartaa boorar ka naqshadeyn kartaa oo waaweyn iyo yar yarba soo jiro oo posters iyo kuwa waaweyn oo boorar ka waaweyn ba wax badan aad samayn kartaa wuxuu leeyahay saddex social media management maareynta baraha bulshada waa shaqo muhiim ah waa in social media management yaa baran kartaa saddex web development yaa baran kartaa samaynta bogag internet macnaha website yaa samayn kartaa application yaa samayn kartaa system management yaa samayn kartaa laakiin web development yaa baranaysa laakiin web development naftiisa si kala qaybsan front end development iyo back end laakiin labada isku baran kartaa full stack ana kartaa ugu dambeyn wuxuu leeyahay e-commerce and dropshipping ganacsiga online-ka e-commerce website sida alaaba lagu iibiyo iyo dropshipping naftiisa website lagu iibiyo laakiin waa alaab adiga aadan gacanta ku hayn alaab aadan adiga gacanta ku haynin oo aad adigu dalaal camal aad tameena qof ka iibinaysa laakiin alaabta meel kale laga soo qaaday marka adiga waxa tahay media ma joogta meel dhaxad taaganta buug wuxuu xusayaa in dad badan oo aan horey xirfad u lahayn ay ganacsiyo dambe ku guuleysteen markii ay wax barteen macnaha ganacsiyo dambe ay samaysteen wax bay barteen dabadeedna ganacsiyo samaysteen waxay sameeyeen dadkan sidoo kale cilmi baaris sameeyeen cilmi baaris dabadeedna suuqay heleen oo wax bay soo barteen cilmi baaris sameeyeen cilmi baaris suuqay ku sameeyeen marka suuqay heleen dabadeedna ganacsiyo way ku guuleysteen sidoo kale wuxuu leeyahay guusha ganacsiyada dhinacyada ah ma ahan mid kaliya u furan dadka horey xirfadda u lahaa ee qof kasta uu baran karaa wax cusub oo uu dhaqaale ka samayn karo haddii aad horey xirfad u leedahay waqtiga iska lumin ee ka faa'iideyso oo lacag ka samay haddii aadan xirfad gaar ah aqoon maalin kasta waa fursad aad ku baran karto xirfad aad ku furan karta ganacsi daciif aad ku furan karto ayaad maalin kasta baran kartaa markasta xirfad baran karta hagaag
waxaan soo gaarnay qodobka shanaad oo ah toddobada waaxood ee ayaan u kala qaybiyey buugga ahna qodobka ugu dambeeyo muuqaalka qaybta labaad. Tijaabin iyo la qabsasho waa furaha guusha u leeyahay. qodobka shanaad tijaabin iyo la qabsasho waa furaha guusha, macnaha tijaabooyin inaad samayso la qabsina aad samayso oo suuqa iyo xirfadahaba ah waa furaha guusha. mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga fahmi karo buugga 100 Side Hustles waa in ganacsigu uusan si toos ah ugu bilaaban guul degdeg ah, macnaha guul degdeg ah iska soo cararma iska soo xaabsama, balse waxaa loo baahan yahay tijaabin, la qabsasho iyo barasho joogto ah loo baahan yahay. dadka ganacsiyada duceedyada ku guuleystay waxa ay isku dayeen fikrado kala duwan isku dayeen, way tijaabiyeen, way barteen wixii sax ah iyo wixii qaldan, macnaha qaladaadkii ku yimiday ayay cashara ka qaateen, kadibna way hagaajiyeen ama way bedeleen habkooda si ay u guul uga gaaraan ganacsigooda. macnaha habka ay ku socdaan haddii uu qalad yahay way bedelayaan dabadeedna guul si u gaaraan. macnaha markasto tijaabada aad samaynayso waxaa waaye haddii waxaan kaa xumaadaan inaad wax kale u gudbi karto, laakiin sida hore usoo sheegnaba laba shay waa inaad ka taxadirtaa, waqtiga aad gelinayso iyo dhaqaalahaba waa inay noqdaan wax tijaabo loogu talagala ah, si haddii guuldar kugu dhacdo khasaaro badan oo waqti iyo dhaqaale uusan kugu dhicin. buug wuxuu muujinayaa in hal fikrad oo aad qabto aysan macnaheedu ahayn isla markiiba shaqayn doonto. macnaha aragtida aad qabto ama fikradda markaa gacanta ku hayso inay shaqaynaa laga yaabaa. waxaa dhici karto in aad u baahato tijaabin iyo sixitaan, macnaha si aad u ogaato waxa shaqaynaya iyo waxa aan shaqaynayn. si aad u ogaato waa inaad tijaabin iyo sixitaan samaysaa. haddii aad u nugushahay wax ka bedelidda iyo barashada qaladaadka, waxaad fursad weyn u leedahay inaad ganacsiga horumariso. macnaha qof oo u nugul ama inuu wax ka bedelo qaladaadkiisa iyo xaaladaha socdo la falgelidiisu fudud haddaad tahay, waxaad tahay qof inuu guul ganacsi gaaro suuragalnimadu ay badan tahay. macnaha hagaag qodobka koowaad ee qodobka waaxda shanaad sida tijaabintu u caawisa ganacsigaaga. tijaabintu sida u caawisa ganacsigaaga. haddii aad rabto inaad guulaysato ha ka dhigin ganacsigaaga mid kaliya isku day ah, balse u tixgeli inuu yahay tijaabo joogto ah. macnaha tijaabo joogto ah inuu yahay markasta tijaabo ku jirto. markii aad guulaysato kaa ku guulaysato hore u galaysaa. buug wuxuu tilmaamayaa in tijaabadu ay ka caawiso ganacsiga dhinaca ama ganacsi ducaadka dhowr arrimood. arrinta koowaad maxay tahay? waa hab lagaga fogaado khasaaro weyn, hab lagaga fogaado waay, maadaama aan si dhaqsi leh u gelin maalgelin weyn ama maalgelin weyn u samaynin, waxaa si tartiib u fahmi kartaa suuqyada jira ayaad u fahmi kartaa. labo, waxay ku ogolaanaysaa inaad ogaato waxa ay dadku danaynayaan. dad badan waxa ay malaynayaan in fikradoodu ay aad u wanaagsan yihiin, macnaha fikrad ay wataan ay wanaagsan tahay moodaan, laakiin suuqu wuu ka duwanaan karaa sida ay filayaan. sida aad filayso malaynayso fikradda aad wadato wuu ka duwanaan karaa, marka waa inaad ka dega rogataa, ka rogo laba saaro. waxa ay qodobka saddexaad tijaabada waxa ay kuu muujinaysaa meesha aad xoogga saari karto. tijaabin kala duwan samey si aad u aragto waxa shaqaynayo, si aad tamartaada halkaas isugu geyso. macnaha tamartaada halkaas ama tamartaada si halkaas ugu geyso. tijaabin kala duwan samey. qodobka afraad waxay kuu ogolaanaysaa inaad wax hagaajiso. macnaha wixii adoon aragtida dhan ka guurin inaad wax hagaajiso oo wax nidaamiso, wax saxdo. ganacsiyada ugu badan ee guulaysto ma ahan kuwa isku daygooda ugu horreeyay guulaystay, balse waa kuwa qaladaadkooda wax ka bartay ee hagaajiyo. qodobka labaad ee waaxda shanaad tusaalooyin dhab ah oo muujinaya sida tijaabooyinku u horseedaan guusha. buuggu wuxuu xusayaa dad badan oo sameeyay tijaabooyin kala duwan si ay u fahmaan waxa shaqaynaya. tijaabin iyo la qabsasho ganacsi. marka qodobka koowaad, qof bilowday iibinta shumac. aniga aragtidan aad ii soo jiidato, aragti cajiib waa. qofaa wuxuu bilaabay iibinta shumac, macnaha candles waxa loo yaqaan. qof bilaabay iibinta shumac gacanta lagu sameeyey, balse markii uu suuq geeyey wuxuu arkay in dad badan aysan danaynayn, macnaha inay dad badan rabeen oo arkay. okay, shumacii wadataa sooma, shumacii aad samaysa haysta dad badan inaysan danaynayn arkay. maxaa samaynaysaa marka? ninkan wuxuu sameynaya eegayna halkii uu iska joojin lahay, macnaha oo
arrin kala geli lahay wuxuu bedelay bartilmaameedka suuq oo bartilmaameedsanay u bedelay wuxuuna bilaabay inuu sameeyo shumac aroosyada loogu talagalay taasoo noqotay ganacsi guulaysta macnaa aroosyada waa ka iibinaaba dadka aroosyada qurqurux iyo kulli xilliga arooska macnaa dee lacaga la iska ogoliyay moogta xilligaasoo kale ka faa'iidaysanaysa marka aroosyada marka inaad la socoto waaydi oo ama si fiican isu baahayso oo dadka asbarto si qolo kasta aroosaba ay kaaga soo toomato qodobka labaad ee waaxda shanaad bedelidda istiraatiijiyadda ganacsada bilaaba adeeg wargeys email wargeys oo bilaabo haye ganacsada bilaaba wargeys newsletter ama waxa loo yaqaano wargeys oo online ah macnaa qaab online dadku ugu diro oo uu ku bixinayo talooyin ganacsi laakiin markii uu arkay in dadku aysan xiisayn wuxuu bilaabay inuu wax ka bedelo fariimihiisa wuxuu xooga saaray waxyaabaha dadku dhab ahaantii rabaan wuxuuna bedelay qaabka uu xogtiisa u bixinayo taasoo keentay in wargeyskiisa uu noqdo mid aad loo akhristo macna hagaag qodobka saddexaad waaxda shanaad wuxuu leeyahay horumarin taas maxay ahayd shaqa bilowday shaqadii waa lagu qanci waay waxaa arkay dadka inaysan rabitaan gaar u ahayn waxaa bedelaysaa marka nidaamkaa bedelaysaa macnaha waa saxaysa marka bartilmaameedkaada iyo waxbaa nidaaminaysaa sababta suuqiga ku jirta waa inaa wax ogaataa qodobka saddexaad horumarin iyo xoojinta adeegyada qof bilaabay adeeg turjumaad ah qofaa wuxuu bilaabay adeeg turjumaad ah luuqadaha kala duwan oo bilaabo luuqado kala duwan inuu isku turjumo balse markii uu arkay in suuqu uu aad u ballaaran yahay oo tartan badan jiro wuxuu diiradda saaray turjumaad rasmi ah oo loogu talagalay shirkadaha sharciga iyo caafimaadka macnaa caafimaadka iyo sharciga bis inuu turjumo taasoo noqotay guul weyn macnaa meesha competition jira soo ma competition kan jiro xagee tartanku ka yaryahay macnaa halkaasoo bartilmaameedsan wuxuu ogaayay goobaha sharciga iyo inaysan turjumaad fiican haysanin iyo goobaha caafimaadka halkaasoo bartilmaameed marka dhigtay waxaan ka hadlaynaa qodobka labaad ee waaxda shanaad qodobka saddexaad ee waaxda shanaad maxaa la samayn karaa si aad ugu guulaysato tijaabinta marka hore tijaabin aad samaynayso soma iyo tusaalooyin soo qaadan maxaa la samayn karaa si tijaabinta ugu guulaysato buug wuxuu bixinayaa dhowr talo oo qof walba ka caawin kara inuu si sax ah u tijaabiyo ganacsigiisa macnaha tijaabin inaad samayso hagaag wuxuu leeyahay kow isku day inaad ganacsigaaga si fudud u bilowdo ma ahan inaad sugto inta aad helayso ama ay ku soo gelaysa maalgelin weyn ku bilow in yar kadibna horumarin samey maalinba wax kordhi laakiin markaas waa inaad la socoto horumarka iyo saadaalinta suuqa naftigeeda waa inaad fahantaa samey tijaabooyin yaryar isku day qaybo kala duwan si aad u ogaato waxa macaamiishu xiisaynayso macaamiishu maxay xiisaynaysaa saddex wuxuu leeyahay dhegayso macaamiishaada dhegayso ha ku dhegin fikirkaaga keliya ha ku dhegin ee dhegayso jawaabaha dadka si aad wax uga beddesho ganacsigaada dadku waa kula shaqaynayaan marka talooyinkooda qaado waxa ay rabaan iyo sida ay danaynayaan faham afar wuxuu leeyahay noqo qof u diyaarsan inuu wax bedelo meeshaanaan ku dhegay ka fuqi maayo maya noqo qof u diyaarsan inuu wax bedelo waxaa dhici karta in qorshahaada uusan u shaqaynin sida aad filaysa sidaas darteed diyaar u noqo inaad wax ka bedesho qorshahaaga wax inaad ka bedesho diyaar u noqo qodobka shanaad wuxuu leeyahay ha ka baqin guuldarrooyinka yaryar ha ka baqin guuldarro ma aan khasaare haddii aad wax ka barato guuldarrada khasaare maaha waxaa muhiim ah in aad si degdeg ah wax u saxdo oo aad mar kale isku day samayso ayaa wuxuu ri qasaba wuxuu leeyahay guusha ganacsiyada dhinac ah ma ahan mid si degdega loo gaaro taas faham degdeg in loo gaaro sababtoo dhinaca waxa marka ugu bilowdo waxay ahayd shaqada haysta ama shaqooyinka caadiga oo shaqaalaha ka tahay in ay kaa soo gala dakhliga noloshaada kana aad kobciso ka waa kobcinaysa marka guul degdega ka sugi waa mid la helo markii si joogto ah loo tijaabiyo lana hagaajiyo waxa shaqaynaya marka laga shaqeeyo la hagaajiyo dadka guulaysta waxay ahaayeen kuwo furan macnaha maxay u furnaayeen isku dayo waxay ahaayeen dadku kuwo isku dayo habab kala duwan dhagaysta macaamiishooda kadibna waxa ay xoojiyaan dhinacyada shaqaynaya ayay xoojiyaan dadkani gunaanadka muxuu yahay marka
ujeedada hadafka ugu weyn waxaa waaye macaamiishu waa meelaha ugu waaweyn businessaa samaynaysaa businesska tijaaba waad wadaysaa marka hore laakiinse tijaabadu ma aha wax boocbooc inaad samaynayso shaqadii aad gelaysaa waxaa ku bilaabaysaa maalgelin macquul ah wax dhaqaale weyn aan kaa gelayn waqtigaada aad haysatana wax oo ku habboonaa raadinaysaa macnaa waxa waqtigaada tusaale kale subaxdii aad shaqaysaa galabtii ma shaqaysa ka soo qabo anaga in badan oo naga meesaasi ay ku shaqeeyaan soo shaqada 6 saac ka soo baxa ama 8 saac 3 saac ama 4 saac oo galno haysato maxaa qaban kartaa tusaale kale graphic designer aad tahay graphic si aan taqaano si fiican xirfadda horta subar aad ugu dadaal dabadeed Fiverr aad tagaysaa ama freelancer aad tagaysaa dabadeedna waxaad gelinaysaa horta portfolio wax la samaysanaysaa sawiradaadii wax aad samaysaa meesha gelinaysaa oo waxaad samaysanaysaa portfolio waa samaysanaysaa meel user aad samaysanaysaa userkaas meel wuxuu ku sameeyaa portfolio oo aad ku sharaxdo logooyinkii posteradii wax aad soo samaysay kuwa cusub waxaa samaynaysaa template ah waa gelinaysaa template-ka marka muxuu ka caawinaa qof intay aragto template-ka inay ku qanacday tiraahdo noocan ah baaba anay template-ka marka maadaama ay saciid lahayn oo adigu aad samaysatay waa qaadaysaa dabadeed wixii ay rabtay unba ugu badbedelaysaa customizer la samaynaysaa macna waa hagaajinaysaa bas dabadeed saas u diraysaa lacag samaynaysaa sidoo kale shaqadaas markaa samaynaysaa marka Facebook waxaysiina ku samaynaysaa iyo TikTok dabadeed waxa ku xaysiinaysaa shaqooyinka qabad xaggana dadka kala soo xiriira shirkadaha kala soo xiriira marka sidaas ku shaqaynaysaa waqtigaada iyo shaqadaada waa in is waafaqaan sidoo kale ganacsiga caadiga ah la sameynaya sidoo kale waqtigaada iyo shaqada waa in is waafaqaan tijaabo macquul ah samaynaysaa marka tusaale kale waxa samaynaysaa blogana samaynaysaa kasoo blogga samaystay muuqaalka hore u hadlay qiyaastii celceliski blog wuxuu noqon karaa domainkii hostiga 30 ilaa 60 doolar celcelis ayaa ku samayn kartaa oo markaas waxay ku xiran tahay domainka lacagtiisa domainku qaar raqiis oo qaar $1 $2 $3 qaarna waa $9 qaarna waa $12 domainada xogaha oo .com iyo noocaas ah .so iyo marka maxaa la yiraahdaa hostigana waxa uu raqiisan waxa u maleeyahay 20 eriidada 20 ilaa 60 u dhaxeeya waxay ku xiran tahay hostiga ay iibsanaysa capacity-giisa ku xiran tahay capacity-giisa marka aniga talo aan ku bixin doona hostiyada iyo qaabka loo iibsado maadaama xogaa ku dhex jiray hostiyada Soomaalida fiican masa kuwa aan Soomaalida ahayn qiyaaskeeda waa aragti jirto waan iska qiyaas kartiin taas qofka aqal waa sii fahmi karaa laakiin criteria lagu kala dooran karaa jiro haye marka waxaan rabaa blogana sameys 3 saac haysta 3 saac waxa qortay 2 article ama 3 article qortay okay marka qorto maalin kasta artikeladaas qortaan macna ugu dambaysta AdSense yahash ana xaysiinahash oo Google ku sii xaysiinadaas lacag ka sameynaysa marka shaqadaas iska wadanaysa shirkadaha kula soo xiriiraya markay arkaan fees-ka badan uu leeyahay website-kaada dabadeedna xaysiina kale ku siinaya saas ku sameynaysa waa balaarinaysa marka dabadeed waxa laga yaabaa in AdSense-ga sida loo sameeyo blogging-ka sida loo sameeyo waxaasad koorsooyin ka sameynaysa qayb kamid ah website-kaada gelinaysa ku iibinaysa markasta business waa sii balaarinaysa marka waqtigan ugu dheeraaday muuqaalka halkaas ku soo gabagabeynayna qaybta labaad ee boogana 100 side hustles waxaan geli doonaa qayb saddexaad oo aan ku qaadan doonaa labada qodob ee noo harsan 7 qodob oo ah qodobka shanaad aan ku soo gabagabeynay qodobka lixaad iyo qodobka toddobaad ayaan ku soo qaadan doonaa inta aan muuqaal aynkan oo kala kulmi doona sidaas iyo nabadina